السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلتنا هبون داوديال وبهدي ودني سومالي تي في iyo xoog saddex xumaantiid official iyo barnaamijyadii dhaqanka dhiirigelinta iyo arrimaha bulshada ee aad nooga barateen waa mar kale iyo barnaamij xiiso badan oo aan maanta idiin soo diyaarinay waa barnaamij runtii ku saabsan hodantinimada afka Soomaaliga lagana yaabo dad badan oo Soomaaliyeed inaysan aqoonin maanta barnaamijka aan halkan ku soo bandhigayno hadii su'aal laga weydiiyana wax kamid ah ay gafi lahaayeen waxa kamid ah maalmaha Soomaaliga hadii lagu yiraahdo ayaamaha Soomaaliga hadii lagu yiraahdo sabti axad isniin iyo talaada waa af Carabi lagu yiraahdo Sunday iyo Friday iyo wixii la mid yihiin waa English Soomaali maxaa lagu dhahaa waa barnaamijkeena maanta marka ugu horeysa soo dhaw saaxiib waan dhawahay boqolkiiba boqol adiguna si lamid ah aad iyo aad ma xasantahay sidii aan horeba carabka ugu dhiftay barnaamijkeenani waa hodantinimada afka Soomaaliga adiga ayaan inoo soo jeedinaya ayaamaha Soomaaliga iyo maalmaha maxayna af Soomaali ahaan u isticmaalnaa maalmaha iyo ayaamaha magacyada loo yaqaan afkeena hooyo ee hodanka ah bismillaah horta maanta mawduucan ka hadlayno waa mawduuc maartay in badan Soomaalidu isku baraarugsanayn laakiin aan rajeynaa insha Allah biidnaahi tabaaraka wa taala in badan maanta wixii ka dambeeyay inay ku baraarugi doonaan iyo waxa jirto anagu hadii aan Soomaali nahay luqad baan anagu leenahay sax waana loo diyaariyay waana loo qoray dad baa maskax galiyay dadkii maskaxda galiyay maartay juhdiga ku bixiyay wixii ay noo diyaareen noo qoreen waxa weeye ma aan siinin wax tixraac ah waxaan qaadanay maartay luqada kale oo shisheeye si fiican sida Carabiga iyo waliba Ingiriiska iyo Soomaalida inta badan ay isticmaashaa niyahu marka waxa weeyaan maadaama arrimahaas ay jiraan oo ay qoran yihiin maartay af Soomaaliga saxda ah oo maartay maanta dictionary sax ah Soomaaliya maanta la helayo sax wal inaan ummadda aan ku baraarujino u sheegno afkooga hooyo hodanka uu yahay aad iyo aad waxa jirto hadda maanta waxaan focus ka saareynaa maalmaha afka Soomaaliga waxa lagu yiraahdo todobada casho sax todobadaas casho magacyada ma lahan sax luqadaha kale sax laakiin insha Allah maanta waxaan falaqeyn doonaa todobada ayaamood oo af Soomaaliya iyo magacyaalkooda si fiican noo bilow bismillaah horta todobada ayaamood waa anagu waxaan u qaanaa sabti axad isniin talaado arbaco khamiis yaan u kala naqaanaa sax maalinta sabtida aan niraahno anagu sabtida aan u naqaano oo aan maanta insha Allah barnaamijka aan number 2 uga dhigi doono waxa la yiraahdaa soo roga ha talo maxay ku baxay soo roga waxa la yiraahdaa sida anagu markii aan muslim nahay oo aan ka nimaano dhaqanka maaragtay galbeedka aan ka nimaano waxaan leenahay maalmo fasax ah sax maalin fasax iyo maalin ay fasax maaragtay uu noo bilowdo sax khamiis iyo jamci sax soo roga marka waxa la yiraahdaa isbuuci tagay ayay soo rogtaa sax dadkii fasax qaatay ee tagay soo laabta iyo ayaamihiiba ayaantu shalay waxay ahayd jamco maanta waxay soo bilaabatay sabti oo soo laabanaysa sidaas marka magacaas oo la baxday soo roga la yiraahdaa maalinta sabtida aad iyo axadi baa axad waxa la yiraahdaa koobin ha sax waxay koobtaa wixii la soo rogay sax maalinta la yiraahdo isniinta waxa la yiraahdaa lamin sax oo wixii la soo rogay ayay lamaanaysaa sax sidoo kale maalinta talaadada waxa loo yaqaanaa lama toog sax lama toog waxa laga wadaa ereygaas yaani waa kala bara waaye sax todobada ayaamood saddexna way soo dhaaftay saddexna way soo horeysaa tan marka waxa weeyaan talaadada dhexdeeda ku jirta oo isbuuc bay kala bartaa sidaas waxay oo la baxday lama toog koodar sax waa arbaco ereyga koodar wuxuu ka yimid qosol sax macnaheedu waxa weeyaan markaad malcaamada dhigan jirto oo kale bari markay jamacada markay khamiis tahay oo habeenka arbacada waxa weeyaan subax lama sameeyo si fiican waxa la isweydiiyaa imtixaanaad yar buu macalinka ardada ka qaadaa markiiba hore la iska fasaxaa marka farxadii khamiistii iyo jamacadii isku xigtay ayay soo dhaweynaysaa sidaas waxay marka oo la baxday magac ah qosol iyo farxada si fiican saas oo la baxday waana maalinka arbacada la yiraahdo sax khamiista soo hartay khamiista waxa la yiraahdaa hakiso wixii soo socday sabti soo bilowday ayay hakisaa sax meeshaas waxaan ka qaadanaa iskuulaadka iyo maartay malcaamadaha dugsiyada in maartay fasax halka laga galo sax waa maalinta khamiista sax maalinta jumcadana waxa la yiraahdaa hakisa bile
wixii khamiistu ah kisay bay bishaa صح waa maalin maaragtay fasax uu balaarto oo maaragtay danaha gaarka ay dadku si gaar ah u qabsadaan ma la oran karaa magacyadan maadaama geyga Soomaalidu balaaran yahay lahjada kala duwan iyo isticmaal kala duwan jiro Soomaalidu uma wada taqaana gobol gaar ah baa loo yaqaan niyo waxa jirto qaasimo horta waa sax oo waan kala lahjada duwanahay 18 gobol ee Soomaaliya laba gobol isku lahjada ma jirto صح laakiin gobolba kale intuu ka xigo waa isku lahjad dhow yihiin si fiican waxa maanta aan soo jeedinayna ma ahan wax lahjad ah waa af Soomaaliga saxdaha صح ee qornaa صح ee maartay abwaano iyo rag naga wax garadsan iyo raggii af Soomaaliga qoray ha waa barnaamij ay noo dooriyeen si fiican oo maartay anagu aan wadadiis inaan qaadnay aan maartay aan ka weecanay aad iyo aad inta waxaynu kaga gudbaynaa 7 maalmood sidoo kale 7 maalmood intaan ka gudbin maalin kasta waxay leedahay ayaan kasta waxay leedahay magacyaal صح magacyaalada waxa kamid ah maalinta sabtida la yiraahdo kale waa maanta صح for example maantaan tusaalaha markaan ku soo qaado maanta aan joogno oo kale sabti markay tahay maanta sabti aan joogno waxa la yiraahdaa maanta صح waxa soo hartay axad oo bari ah hadii ilaahayna gaarsiiyo waxa la yiraahdaa bari صح ilaa ayaan kasta waxaan ku tusayaa macnaha afkanaga inuu hodan yahay ayaan kasta magacyaalkeeda aad iyo aad maalinta lamin la yiraahdo oo isniinta ah waxa la yiraahdaa saa dambe صح sidoo kale maalinta talaadada ah oo kala barto oo loo yaqaan lama toog waxa la yiraahdaa saakuun صح maalinta koodaar la yiraahdo oo ku astaysan arbacadana waxa la yiraahdaa samata صح sidoo kale maalinta hakisada ah oo ku astaysan khamiistana waxa la yiraahdaa duraad maalin kasta markaad maanta joogto bay waxay ku noqonaysaa shalay maalintii doontay ku beegmi kartaa shalay maalintii ku beegti martaa laakiin hadda waxaan raati ka horeysay laakiin inay ku beeganto isniin talaada inay maalin bay ku beegmi kartaa yani sida hadda aan u soo sharaxay صح yaan ka wadaa صح toddoba isbuuc aadis si fiican maanta markaan hadda aan joogno kale for example ka soo qaad maanta waxaan joognaa ma sabti baan joognaa sidii macnaha barnaamijka aan ku soo bilownay si fiican sabti markaad joogto jamca maxay ku noqonaysaa oo soo dhaaftay shalay waa shalay soo ma maalinta ka sii xageysana daraad barnaamijka hadda wuxuu ku soo socday marka waxa weeye koodaar oo arbaca waa samato صح samatana waxay ku astaysan tahay waa maalintii farxadda aad iyo aad hakisana waxa weeyaan waa daraad aad iyo aad jamcadii oo shalay ahayd oo soo dhaafnayna waxay ku astaysan tahay ayaduna waa shalay marka maalin kasta magacyaalkeeda waa sida aad iyo aad dhanka bilaha si wanaagsan Soomaaliga maxaa lagu yiraahdaa 12 bilood 12 bilood niyo 12 bilood waxa weeyaan waa sida horta waxa weeyaan xagaaga waa 3 bilood weeyaan صح xilliga Google la yiraahdana asaguna waa 3 bilood xagaagana asaguna waa 3 bilood dayrtuna waa 3 bilood diraacduna waa 3 bilood jilaalka jilaal ha si fiican marka waxaan maanta dul istaagaynaa insha Allah 3 bilood oo kasta oo xilli kasta maarata 3 bilood inaan maarata magac maanta af Soomaali aan ku sheegno laakiin anagu awal waxaan u naqaanay ma garanaysaa waxa la yiraahdo September iyo November iyo August waxyaabahaas aan u naqaanay laakiin insha Allah maanta waxaan baranaynaa ayadoo Soomaali ah صح jilaalka ama xilliga la yiraahdo diraacda waxa weeyaan 3 bilood bisha koowaad waxa la yiraahdaa wajiini wajiini si fiican oo ku astaysan bisha la yiraahdo January صح eriga wajiinina wuxuu ka yimid qabow صح sidaas loo ognahay xilliga maarta bisha January la yiraahdo inta badan qabow bay maarta ku beegantaa صح bisha labaad ee ma garanaysaa February ku astaysan waxa la yiraahdaa xays صح bisha saddexaad ee March ayada loo yaqaanana waxa la yiraahdaa todob halka waxaan ugu dhamaaday 3 bilood ee maartay diraacda ama jilaalka hadba si loo yaqaano dadku qaarkoodna waxay yiraahdaan qorraxeed صح waxaan galeynaa insha Allah 3 guga 3 guga waxa la yiraahdaa sirmaweydo صح waa bisha loo yaqaano April صح bisha shanaad oo maartay May ku astaysana waxa la yiraahdaa andaqoys andaqoys waxa loogu bixiyana waxa weeyaan waa xilli barwaaqo fara badan ay jirto oo xooluhu ma garanaysaa inkastoo Soomaalidu ay kala lahjado badan tahay xooluhu intay barqadaan waxa jirto mar ariga aroortii oo kale inta oo laga rago uu soo daaqo 3 saac markii la gaaro kale soo barqado in la soo celiyo marka ariga inta loo quraacanayo la lisaayo waxa weeye waqti badan buu halka ku qaataa marka xilligaas barwaaqada ayaa loogu bixiyay andaqoys si fiican waxaa jirto bisha lixaad oo June ku asaysana waxa la yiraahdaa guyar
guyar ها صح وحلقي ugu ku maartay ku sagootinayay oo صح. sii baxay sidoo kale waxaan u gudbaynaa xilliga xagaaga la yiraahdo oo Englishkana summer lagu yiraahdo صح kulay af Soomaali baan ku sharaxaynaa samarkaas uu iga soo fakaday laga raal noqdo si fiican bisha toddobaad waxaa la yiraahdaa xagaa cadde صح waa bisha koowaad bisha markaas waxaan leeyahay toddobaad bay ku asaysan tahay oo July ah laakiin waa bisha koowaad ee xagaaga ilaa saddex xagaaga waqti kasta waxaan soo yeelnay inuu leeyahay saddex maartay bilood marka xagaaga bishiisa koowaad waxaa la yiraahdaa xagaa cadde oo ku asaysan June sidoo kale bisha sideedaad oo ku astaysan ayadana August waxaa la yiraahdaa xagaa qaboobe si fiican ama xagaa qaboob hadba sida maartay ha lahjad dadku ay u yaqaanaan si fiican bisha sagaalaad oo September ku adaysan waxaa la yiraahdaa karan weyne leeyahay ha صح halka waxaa noogu soo ilaaday saddexdii kale ee maartay xagaaga صح waxaan galeynaa saddexda dayrta صح bisha tobnaad ee ku astaysan October waxaa la yiraahdaa karan yar صح bisha 11aad oo loo yaqaan November waxaa la yiraahdaa dambasame صح bisha 12aad oo ku astaysan Decemberna waxaa la yiraahdaa dalaalo صح halka marka waxaa noogu ekaaday 12 bilood ee sanadka si fiican oo aan ku soo sharaxnay ayagoo maartay Soomaali ah oo bil kastana macnaheedu soo dadka maadaama af Soomaaliga aysan wada garanaynin صح bil kasta ayadoo maartay Ingiriishaasi dadku u yaqaanaan aan ayadana hor dhignay aad iyo aad baa mahadsantahay mudane runtii waxaan malaynayaa inay dad Soomaali fara badan si fiican uga faa'iideysteen oo aan maalmaha ayaamaha bilaha af Soomaaliga wax fara badan oo waqtigan hadda la joogana waliba aad muddo af Soomaaliga inuu maartay dadkii ay si ilaawayaan oo dhaqankii baadiyaha marka la joogay Soomaalidu si fiican ay u taqaanay maalmaha magacyadooda iyo bilaha magacyadooda iyo xilliga magacyadiisa intaba laakiin intii magaalooyinka la soo galay ee Soomaalidu wax baratay wax badan baa lumay aad iyo aad baad u mahadsan tahay intaas maxaa barnaamijkeena raaca afka Soomaaliga ku saabsan ee maanta inoo hayso xareed insha Allah waxaan ku dari doonaa hadii Ilaahay noo ogolaado wixii aan ka karno waxa loo yaqaano aminta waxaan filayaa aminta Soomaalidu inta badan inay isfahmeen amin waxa la yiraahdaa waqtiyada saan ognahay waqtigu wuxuu ka kooban yahay 24 saac oo isku weer ah صح 12 habeenkii ah iyo 12 maalinka ah afkanaga Soomaaliyeed hodantinimo waxa uu ka gaaray waxaan leenahay saacad kasta 24 saac ay wareega ah 24 saac saacadiiba in anagu waqti noo leedahay magac gaar ay noo leedahay ha marka insha Allah waxaan halkan ku soo bandhigi doonaa ayadana sidoo kale waqtiga magaciisa ama aminto kale si fiican waxaan ka bilaabaynaa subaxii xilliga maartay 12 maalinimo aan ku hormarinaa halka saac ee subaxnimo waxa loo yaqaanaa waa bari صح labada saac ee subaxnimona waxa loo yaqaanaa barqo ama barqayar hadba sidii dadku u fahmayaan saddex saac waxa loo yaqaanaa xigsin صح xigsin waxay oo la baxday waxa weeyaan waa xilliga neefki saaka la maalay oo caano ku soo dhacaan oo ubadkiisa inuu nuugo ama maartay caano kale laga raadsado ay maartay ku soo dhacdo sidaas ay xigsin oo la baxday saacada afraad waxa la yiraahdaa barqo kulul صح waa xilliga qoraxdu ay soo yara kululaato oo ma garanaysaa xoogaa la dareemo qofka maartay banaanka fadhiyo kale uu dareemo in qoraxdu ay soo yara kululaatay barqo kulul baa la yiraahdaa 5 saac markii la yiraahdo waxa la yiraahdaa har soo kor yaani qoraxda soo dheeraato oo harkiiba ma garanaysaa ay soo korayo sidoo kale 6 saac saacada la yiraahdo waxa loo yaqaanaa hargal waa xilliga waxa weeyaan maartay guriyaha la soo aado ama ariga iyo maartay waxyaabahaas la soo rogo oo maartay ariga uu geedaha harsado hargal baa la yiraahdaa صح 7 saac harimo صح harimo waa xilliga maartay nasiinada ee ma garanaysaa qofkii soo harsaday xilliga uu nasanayo 7 saac waxa la yiraahdaa harimo صح saacada 8 saac maalinimo markay tahayna waxa la yiraahdaa galab oo waxa loo dhaadhacaya halkaas waxa bilaabanayo xilligii maartay galabnimadii waa bilaabanayso galab baa loo yaqaanaa 9 saac ee galabnimana waxa loo yaqaanaa galab dheer aad iyo aad halka 10 saacna loo yaqaano galab gaab oo maartay qoraxdii ay maartay gudkeeda ay ku sii dhawaanayso ha si fiican sidoo kale 11 saac ee galabnimana waxa loo yaqaanaa gabal dhac qoraxdii baa geeska sii dhigayso halka 12 saac ee maartay maghribnimana la yiraahdo fiid cawl صح
fiid cawl yacni waxa weeyaan qoraxdiina waa tagtay dayixii ama habeenkiina waxa weeye haddii dayax jirina wixii baa isgalayo waxa weeye carradii waxay noqonaysaa cawl cawl bay noqonaysaa صح halkaa waxaa noogu idlaaday 12 saacadood ee maalinta صح saacadahan aan soo sheegay dadka qaarkood waan ka raali gelinayaa waxay u yaqaanaan maaragtay halka saaca subaxnimo waxay u yaqaanaan 7 saac labada saac waxay u yaqaanaan 8 saac sidaas marka waxa weeyaan xisaabta noocaas dadka yaqaanana waxa weeyaan waan ka raali gelinayaa laakiin waxaan ku bilaabanay barnaamijkanaga wuxuu yahay maadaama aan af Soomaali aan ku hadlayno maaragtay xisaabta si ay kow nooga bilaabato sidoo kale waxaan u gudbaynaa 12 habeenimo 12 saac ee habeenimo hadii Ilaahay yiraahdo halka saac ee habeenimo waxa loo yaqaanaa hiraad ama fiid hiraad ama fiid hiraab maaya صح hiraad halka aysan isku khaldin hiraad ama fiid si fiican labada saac ee habeenimona waxa loo yaqaanaa cawaysin cawaysin ha halka saddex saac ee habeenimona loo yaqaano marfurad waa xilliga la yar nafisay oo xilliga la yar nafisay waxa weeyaan dadkii hawlaha soo galay maarta ay nasanayaan oo nasiinada qaadanayaan afarta saac habeenimona waxa la yiraahdaa saqdhabo ama sardho صح ha labada ereyba waa la yiraahdaa Soomaaliga صح shanta saac habeenimona waxa la yiraahdaa saqbar صح halka lixda saac habeenimona la yiraahdo saqdhexe waa ereygaas aad bay Soomaalidu u isticmaashaa saqdhexe صح laakiin in badan baa ka dahsoon insha Allah intaas aan u iftiimin doonaa toddobada saac waxa la yiraahdaa mirkac ereyga mirkac waxay oo la baxday waa xilliyada inta badan ilmaha haday fiidka seexdaan ay soo kacaan oo ama caana ama naas ay u baahdaan ha sidoo kale geela markii fiidka la maalo oo hal saac ama laba saac habeenimo la maalo waa xilligan dirgihiisu u kaco oo u xuskimo ama xigsin waxay yiraahdaan sideeda saac habeenimona waxa la yiraahdaa hiraab halka sagaalka saac habeenimona la yiraahdo jiida waa bari tobanka saac habeenimona waxa la yiraahdaa oogta waa bari sidoo kale 12 saac habeenimo ee ku asaysan xilliga salaada maartay Afrikada bari laga tukadana waxa la yiraahdaa hiirta waa bari meeshan waxa weey waa bari badan baa israacay waa jiida waa bari oogta waa bari iyo hiirta waa bari ama oogta dhexe hadba si maartay dadku u yaqaanaan 12 saac ee subaxnimo oo aroortii ana waxa loo yaqaanaa sagal bari sagal bari si fiican halka marka waxa noogu soo ilaaday 24 saac ee isku weerka hay habeenkii maalinka ka koobnaa magacyada loo yaqaan saacad kasta magaca loo yaqaan aad iyo aad baad mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa xareed xogsade ama xogsade oo barnaamijkan inoo soo jeedinayay afka Soomaaliga iyo hodantinimadiisa tan iyo intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmin doono dhamaantiin fi amaanillah